sanadahan dambe waxaa soo xoogeysanaya lacagta al-shabaab ay siiyaan dadka ganacsiga ku leh magaalooyinka iyo kuwa alaabaha ka soo dejiya dekadaha iyo garoomada diyaaradaha Soomaaliya. waxaa jirtay in dawladda Soomaaliya ay marar kala duwan fariimo toos ah u dirtay ganacsatada qaar ee ka gaabiyay in ay bixiyaan canshuurta xaq loogu leeyahay. haddaba weliga canshuur qaran ma bixisay ganacsade? Soomaaliya waxaa taageero dhaqaale oo aan baahida dalka dabooli karin siiya wadamo daneeya arrimaheeda. kaalmadaasna waxa ay si toos ah uga timid canshuur ay bixiyaan muwaadiniinta dalalkaasi u dhashay. canshuurtu waa qaran oo ay waajib ku tahay bulshada inteeda wax haysata in ay bixiyaan si dalka iyo dadka u horumaraan. canshuurta laga qaado agabyada dekadaha ka soo dega sharciga canshuuraha Soomaaliya ayaa dhigaya 5% in la qaado, balse dawladda oo xeerinaysa xaaladda soo kabasho ee dalka una naxariisanaysa dadkeeda ayaa taasi hoos uga dhigta mararka qaar wax ka yar 5%. waxaa jira ganacsato cuslaysta nidaamka dawladda Soomaaliya ay wax u qaado, balse waxa ay bixiyaan canshuurta ay al-shabaab ku soo rogaan amar la'aan. sidoo kale waxay ogal yihiin in ay bixiyaan canshuurta dalalka ay badeecadaha soo marsiistaan ama ay ka soo qaataan. tusaale ahaan, halkii tan ee shidaal ah dekada Mombasa waxaa looga qaadaa canshuur ahaan $450. taasi beddelkeeda marka ay dekada Muqdisho ka soo degsanayaan waxaa laga qaadaa $45 oo kaliya, waxaana muuqda in farqi weyn uu u dhaxeeyo halkaasi. ganacsatada lacagta siiya al-shabaab iyo dadka u qiildaya arrinkaas ayaa ku dooda in ay u bixiyaan lacagtaasi faraha badan sabab la xiriirta amnigooda iyo midka ganacsigooda. waxayna intaas ku daraan in aysan dawladda ku filnayn ilaalinta naftooda iyo ammaanka ganacsigooda. halka dadka doonaya in nidaamka dawliga ah uu xoogaysto ay isweydiinayaan sababta ganacsatada Soomaaliya canshuurtii ay dawladda siin lahaayeen ugu weeciyeen dhanka al-shabaab, iyagoo og danaha ay u adeegsan doonaan shabaabka lacagtaasi la siinayo. waxay kaloo ku doodeen ganacsatada badeecadaha kala duwan ka soo dejiya dekada Muqdisho iyo gobolada dalka canshuur aan tiro lahayn ay al-shabaab ka qaataan bil walba, iyagoo intaas ku daray sababta ganacsatada culeysku u arka in 5% canshuurta dawladda ay bixiyaan ay al-shabaab u siiyaan ku dhawaad 30% ama ka badan. waxaana halkaas dhaqaale xoogan ka hela al-shabaab, waana sababta diidaysa in laga adkaado. ganacsatada iyo shacabka waxay ka warqabaan lacagtaas faraha badan in ay al-shabaab u adeegsanayaan dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed, in ay mushaar ahaan u siinayaan ragga ka tirsan al-shabaab. waxaa lagu iibiyaa gawaarida iyo agabka qaraxyada lagu fuliyo. waxaa lagu iibiyaa hubka iyo rasaasta ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda ay dhisteen. waxaa lagu burburiyaa bilicda iyo horumarka dalka ka jira. intaas iyo in ka badan oo aan wanaagsanayn ayaa loo isticmaalaa canshuurta ay ganacsatada dawladda ka baqiileen balse al-shabaab ay u hibeeyaan. haddaba canshuurta yar ee dawladda siiyaan ganacsatada maxay ku qabataa dawladda Soomaaliya? ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladda ayaa lagu kabaa mushaarkooda si ay dalka iyo dadka ugu sii shaqeeyaan. waxaa qayb ahaan lagu daraa adeegyada horumarineed ee dalka. dhismaha iyo qalabaynta ciidamada kala duwan iyo tababaradooda ayay qayb ka tahay canshuurta aad bixisid. dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa lagu daraa. kab muhiim ah ayay u tahay deeqaha laga helo wadamada taageera Soomaaliya. sugidda amniga ayaa loo adeegsadaa canshuurta ay bixiyaan ganacsatada. intaas oo dhan waxay muujinaysaa in canshuurtii ay bixiyeen ganacsatada ay dib ugu noqotay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. dawladda Soomaaliya ayaa ku tiirsan canshuurta wax soo saarka iyo midda laga qaado gaadiidleyda kala duwan ee ganacsatada yaryar ee suuqyada dalka wax ku iibiya, halka ganacsatada waaweyn iyo kuwa badeecadaha ay dekadaha uga soo degaan lacagtooda ay ku qoodiyaan al-shabaab.